maanta waa maalin isniina waxaana bishan waa bishii May waana maalin isniin oo 28 halkan waxa inoo martiya shabakada kulanka iyo codka Djibouti waxa uu martiya mudane Xuseen Candole magaalada Ottawa ku sugan Xuseen su'aasheedu horeysa toddobaadkan dhexdiisa magaalada Hargeysa ee magaalada madaxda Somaliland jamhuuriyadda la madax baxday waxa warshad kookaha lagu sameeyay iyo halka laga furay halka waxa goobjoog ka ahaa 5 saraakiil oo reer Djibouti oo 4 wasiir ay ku jirto iyo maareeyaha bankiga dhexe Bank National Djibouti loo yaqaan mudane Jaamac Xayd bal adigu arinta sidee warkaysaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتمرك وجوه رشاد بدو مهتسنتين كلنكا يو عدك جيبوتي أرنتا دي ويدي سورت وأرن آدي لوجا يا بني هاي هدي اللي تشوجو سومالي لان يهدي اللي تشوجو بجيبوتي يهدي اللي تشوجو بأوتاوا وحوي أرتا مالجليس 300 مليار فرنك دولار مرايكن كانوا بيشيجوا ولا جليي أو يدد ريت جيبوتي جليين سومالي لاند ورتوا معجزة وي طلبات وزيرو دي إسماعيل عمر يو مريه بانك الدحي جيبوتي أو كقد بدي حاجة أو كفر أحسن شغالة لقى فريو أم بالشغالين لشغالي سينيو ودد ريت سومالي لاند ورشدة أي كفر أحسن مركل اللي سويدينا وحوي بالبلمانتا محاجرة بالبلمانتا والقوقا شونه وبلا بيو dhalinyartii reer Djibouti waa bila shaqo waxaan oran lahaa hadii ay yihiin mas'uuliin reer Djibouti amba hadii yihiin wasiir reer Djibouti maxay uga bilaabilayeen inay warshado ka furaan Djibouti amba inay shaqaaleeyaan dad reer Djibouti waa ta ugu horeysa talabaad nin kastaba uu isku ogeyn in lacagtani tahay lacag laga qaaday Djibouti oo la maalgeliyay sidii loo soo qaadina waa la ogyahay waana la daba socdaa maalinaan maanta hayna way soo bixi doontaa insha Allah billahi kariim هذا مدن حسين ما قبتها أديكو ما أنت وحلت مدابة سراكيش وطنك وليبا دولة مدن اسمها نمر قيل إني كان حسس كوب بدلين أي دن قاربة دنوه أي كوب بدل يكونين دنتي وطنك يكون لوين بالشعب وشقين ركب مشتري مدح بنا نسكن نقدين هذا ما قبتها ورتوال لوجي مانتا إن وحلا يلاحظوا وزير أنو تشرين جيبوتي وحلا يلاحظ مدحوين أنو تشرين جيبوتي مانتا وحلا النقدي waddankii wala farqaysanaya wala bil qaysanaya waddankii maanta lacag ma taalo waayo wasiiradii waxay ku dambeeyay baac mushtari marka anigu waan qaba ragani rag u shaqeynaya maaha waddanka waa rag danta gaar ah u shaqeynaya wadad lacagtii urursanaya laakiin waxay lowsan yihiin been cali muxuu ku dambeeyay waxay lowsan yihiin qadaafi lacagtiisa away waa la soo qabtay iyagana maalin maanta ahayn ya lacagta la soo qaban doona halkan dibadda waxa nooga dad badan ayaa wadan ka soo qaxay oo dadkaasina dadkii la u dhawaabay dawladda mudane Soomaaliya galay u badan yihiin oo meeliyad iska wata oo halkan iska degay dadka badiyoodu iyaga noogu sheekeeyeen war wadankii waa baabay war waxa ma hadin war dawlad ma jirto kolka adigu maxaad sida warkaysaa dadka kolka wax ku sheekeynayaan bal warxin nooga sii wallahi horta in sida wararka naga soo gaariyay Djibouti maanta waxa la leeyahay biyo ma jiraan kooran ma jirto caruurtii way gaajoonaysaa caafimaad ma jiro dhakhtar ma jiro dadkii way soo wala yaacayaan amba way soo qaxayaan oo xaggan maalintii alla soo gooyaba boqolaalba ka soo gala xuduudka Mareykanka iyo Canada waan ognahay in dhibaato weyn jirto waan ognahay waan la soconnaa waana dhab maanta dhibaatada jirta Djibouti dadkii way ka soo wala yaacayaan Gatineau magaalada yar oo la yiraahdo ay soo wala degayaan oo jaarkayaga marka waan ognahay rag sarsare iyo rag oo macallimiin ahaaba inay magaaladan soo galeen marka waxay ku tusaysaa in wadankii dhibaato weyn jirto maxamedow xuseen waa labada su'aal ee u dambaysa waxaan bal xagga mucaaradkan u baadhanaa mayna maanta haboonin in maanta hoggaan cusub oo mucaaradku isdaaray oo xukuumad jadiida oo ku meel gaara oo la dhiso si wadanka loo badbaadiyo maadaama aan ognahay aynay ka soo dhamaanayso mudane taliska mudane Soomaaliya gol madaxu ka yahay uu gabagabadii tahay mucaaradku inuu diyaar garoobo uu hoggaan jadiida la yimaado oo maamul jadiida la yimaado maad qabin xuseen horta waxa weeye maxamedow intaan su'aasha ka jawaabin horta waxaan sheegayaa Ottawa anaku waxaan u nahay ragii soo dhaweeyay walaalkay Daahir Axmed Faarax ragii soo dhaweeyay walaalkay Mahdi Ibrahim Good iyo Qaasim Axmed Diini ragii soo dhaweeyay Allah u naxariistay marxuumkii Jampol Abdi Nawal marka waxa weeye anaku walaalayaal hadiyo goor waxaan doonaynaa in ummadda reer Djibouti ay heega ay ka tashato macaaridkuna inuu noqdo macaarid ummadda reer Djibouti u fakari oo danta guud ka sheekan waa diyaar haday doonayaan maanta in Ottawa
loo gogol xaadho amba in Ottawa lagu dhiso wax ku meel gaadha oo bedela taliska Ismaaciil Cumar Geelle annaku diyaar baan u nahay markan ku xigo waxa weeye macaaridku waa mid macaaridku ma kala jabsana ummadan baa been sheegay soo way kala jabsanaan waxaan aaminsanahay macaaridku waa mid dan qoray wala socdaan dan gaaray ku socdaan waxay doonayaan hadhow inay meeshan badbaadiyaan marka kullayba nin dibadda joogay nin gudaha joogaba waa la isla socdaa diyaarna waa loo yahay in la badbaadiyo wadankii haddii ay talayga tahay waxa weeye waa in la diyaariyo sidaad sheegaysaad ku dhawaaqdayba dawlad ku meel gaadha oo degdeg loo dhiso waayo wadankii fariibu ka sii baxaya Ismaaciil Cumar waxba uma hadhin waxaan u maleeyaa waqtigiisii uu dhamaaday mar horan waanu sheegnay insha Allah bidmilaahi kariina walaalahayga macaaridka waxaanu sheegaynaa haddana reer Ottawa diyaar baanu diinahay inaan digu gol xadno inaanu xaggan shirweyn ku qaban Ramadaan dabadeed waka ilaahay idankii waad ka soo jawaabi doontaan laakiin waa si degdeg ah la iskugu yimaado oo la tashado waa su'aasheeda u dambaysa mudane Xuseen bishan June foodan waa sinad guridii calanka sidaad ogtayba waa 34 sanadood baa naga xigta markaan calanka aan qaadanay waad soo ogteen xaaladda wadanka waad isku ogtay kolka bal maxaad ka oran lahayd shacabka walaalihina reer Djibouti maadaama isbedel degdeg loo baahan yahay hawsha sidee u galayaan horta waxa weeye calankan waa loo yahay dadkii soo halgamay waa loo yahay dadkii u dhintay maantana dadkii haleelay ee ka talinaya wadanka waa loo yahay waxa weeye walaalayaal wali agoon baynu nahay insha Allah bidmilaahi agoonnimadan waa ka baxayna waxa weeye ummadda reer Djibouti haddaanu joogno dibadda hadiyo goor waan idigu fakirnaa waanu indhahaanu idigu haynaa waanu idi ilaalinaynaa habaqina dhibaatadu way ina soo martay ilaahay idankii si degdeg ah uga bixi doonaa idinkuna waxaan idin weydiisanaynaa inaad sara kacdaan oo macaaridka soo garab joogsataan oo ummadda tustaan adduunka inaad taliskan yahay talis xun inuu yahay talis ummadda baabi'iyay inuu yahay talis faaruqiyay lacagtii wadanka intaas la idiga baahay annakuna inta kale annaka insha Allah bidmilaahi kariim adduunka gaarsiinna wal maasanta waraysigii Xuseen Candhool aan ka helay ee magaalada Ottawa waad maasatay mudan Xuseen adiga mudan Maxamed